السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال مeel kasta aad joogtaan sida aad noo daawanaysaan dinalka maasan ayaa 3 ama 400 dollar ugu deeqay Durdur Media 300 dollar ugu deeqay Durdur Media kadib musiibadii dhacday wayahay halkan waxa ugu jeedin lacag 300 dollar Mareykanka ah aad iyo aad runtii Master Bana iyo team Durdur iyo abaha ayaa ka dambeeyay runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa maansan sida wanaagsan ee wacan ee ay dhaqaalaha ugu deeqeen Durdur Media oo u jeedin dadka qaar waxa laga yaabaa maxay tahay bahdilkan Xasan Toob lacagta loogu doonsiinayo macnaha anigoo ah Xasan Toob haddaan lacagta walaalahayga ay gudoonsiyeen aan diido oo dhaho ma u baahni macnaheed waxay cadeynay qof kale oo walaal ah oo baahan oo musiibo ama dhib qabsaday hadduu jiro aad iyo aad u noqonay wax dhibaato ah waxaan ka wadaa qof aan lacag awoodin oo lacag haysan oo wuxuu ku shaqaysanayeen dhibaato gaareen ayaa laga yaabaa oo $1 meel u oolin inay ku dhacdo oo marka qofkeena uusan diidin marka annaga oo ah Durdur Media oo dad la yaqaan ah in ay maansan media ay nasiyaan wax walba wanaag $100 taas way cadeen u tahay wax walba oo wanaag ah in ummadda ay isfari karaan wax walba oo wanaag ah in qofku uu raali ka noqon karo hadda maanta lacag ayaa ma agtay tahay waxa laga yaabaa dad walaalo ah oo qurbo joog ah oo dal iyo dibad joog inay caawinaad soo siiyaan maadaama ay maxaa la dhahaa hawshii anaga aan ku shaqeynayay oo hawsha aan ku wadnay burbur ama dhibaatooyin loo geystay okay sababta loo dhahay maxaa waay haddii Durdur aysan saas dhihin hadday Durdur aysan sidaas dhihin qof kale hadday musiibadan saamayso dadka dhan waxay ummadda dhan waxay u arkaan kii wax haystay kii wax haysan soo kaba marka waxaa la rabaa dadka inay sidaan oo kale u kacaan hadda hal YouTube ayaa lacagtaas bixiyay waana maansan $300 ku deeqay maansan ugu horeeyay Baba Cabdulle iyo abaha iyo saaxiibkayga qaaliga Buufle waa maadsantiin sidaad noo sharafteen oo isku soo xilqaanteen aan la soo gaarsiiseen boqolkiiba boqol maansan waa ku maadsantiin sidaad camal falka noo soo gaarsiiseen oo waxaan maanta Xasan Toob lacag qaatay iyo saas waa iyo dadka fiirsada iyo ku raadinaa dadkaas waxaan dhiilayn waxaas walaalayaal Xasan Toob maanta adiga walaalkaaga caawin bari adiga ku caawinayo oo bari maanta walaalkaaga garabkiisa yaas adi taagnin yaa taagnaanayo qof kale ma taagnaanayo walaalayaal sidaas maahan si qaldan iyo loo fahmin waxaan dhiilahayn dadka kalena walaalkiina caawiya oo alis caawiyo caawinaad waa shay qaali maanta doo Xasan Toob maasan soo caabisay barina Xasan Toob maasan caawiyo inuu dad caawiyo laftarkiisa Xasan Toob asna dad kale caawiyo qof kasta dhibaatada ku dhacaysa amar liibaan raal noqo ka dhaxgalay tusaale hadda dadkan ii sheeg oo booliistayaasha Xasan Toob oo soo waday dugsiyo fiiriya kooladii ku joojiyay darbijiifnimadii ku joojiyay dulinimada ku joojiyay qaarkood waa la dugsiga la geeyay waxa la geeyay qaaradood madraso meel dhaqan celin ah halaasoo dhan Xasan Toob yaa idinka ma lacagta siinaysan waa may waa samafalko shalay timirto beerte oo maanta guruunwa marka walaalayaal waxa la dhiileen lacagta ay maansan la siisay waxay taas micno u tahay in bani aadanka inay is caawinayaan sax dhalinyaradu in aanay mar walba ay kala maarmi karin صح qofka dhalinyarada ah ma kala maarmaanayo nabiga ma yuhibbu li nafsika yuhibbu li akhihi waxa nafsadaada la jeclaato walaalkaaga la jeclaa fiir dayba ko wax walba YouTube ka socdo waa wax iska caadi ah oo dhalinyarnimo ah oo iska baashaal ah 3 marka $300 waa kana bahdilna ma ahan macdarna ma ahan والدين بهدلي سانا لدين قالي اوكي qof kasto waxa waaye waa la caawinaa markuu dhiban yahay ama dhib dhaco qofkan marka la caawinayo waa markay dhib uu qof ku dhaco qof laakiin oo dhib aan ku dhicin musiibo haysan aan wax ku dhicin qaarkood waxa jira markay dhib ku dhaco ama musiibo ay ku dhacdo wixii sidoo kale Norway oo dalka dibadiisa ku sugan waxa uu lacag ugu deeqay
oo lacag 200 oo doolarka maraykanka ah durdur media group lacagtaas 200 oo doolarka maraykanka ah wuxuu dhahay ku caawi waa caawinaad gaar ah ayuu yiri waa caawinaad gaar ah ayuu dhahay oo aan ujeedka tahay uu dhahay in maxaa la dhahaa idinku caawiyo wax allaala wixii aad u baahan tihiin marka Faisal oo ku sugan Norway oo ah in walaalkeena ah wuxuu markasta sheegay in uu maxaa la dhahaa ku faraxsan yahay qadarta allana laga waxaa waaye wax dhici kara waaye marka in la is caawiyo meesha ku jirta meelaha waxaa durdur waa ku tuugsanaysaa ma aha way ku tuugsanaysaa hal noo soo tuuro lacag ee dadka dhihi rabaan ma aha wax walba macnaha waxaa waaye dadka inay is caawiyaan maadaama anaga horumar wadnay maadaama howl wadnay si hawsheena ay usoo kabato walaa tacaawanu cala ولا albir تعاونوا على البر ولا الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان marka Faisal Norway samafal Faisal Norway oo ah ninka kaliya inta badan caawinaada u sameeya dadka Soomaaliyeed kuwa maxaa la dhahaa darbi jiifta ah kuwa maxaa la dhahaa aad waxaan ognahay in dad badan oo darbi jiif ahayd aan keennay oo dadkii shakhsiyaadka ugu horeeyay aan beegsanay oona qaday oo mar badan uu lacag bixi soo dhiibay abees albaafo ilaa min dhammaan durdurmeedii qof walba oo imaado uu caawin jiray marka Faisal Norway hadda abaha wuxuu noogu deeqay 300 Faisal Norway wuxuu noogu deeqay lacag 200 doolar ma sha Allah lacagta 200 salaad 300 u jeedin 200 doolar Faisal uu ku deeqay waa waxa loo dhayaqaan touch dadkina u sheegaa raba waa touch marka hadama touch ay tahay touch ma soo daawici karo mobilka ku jirta aad iyo aad marka Faisal Norway ayaan qad ku jiraan raba in la hadlo in la hadlo si maxaa la dhahaa dhiirigelintan uu sameeyay arrintan uu sameeyay hadda abaha 300 waa youtuber okay waxaan naga dhexeeyay dhowr jeer inaan iskarbaashnay dhowr jeer inaan wax iska dhaanay waxaas oo dhan waxay cadeen u tahay in iska views iyo arrimahaas inay tahay bal Faisal Norway samafale Faisal Norway soo dhawo walaal sababta ah ugu deeqday 200 oo doolarka Mareykanka ah Faisal maxay tahay aad xasan mustafa isaaq waan dhawahay asxaabta inta kula joogta dhammaan aadaan u dhawahay reer durdurmeedii waan salaamayaa niyahow waxaas iyo wax ka badan horta la isku leeyahay masiibada dhacday aadaan horta ugu xumaa intaan horta lacagtaas iyo waxaas aana gelin horta inaan ka dhiidhiyo masiibada kugu dhacday walaalkay ku dhacday xasan mustafa isaaq aadaan ugu xumahay waxaan ku hurdi waayey waxaan kaarsan waayey igu naqatay midda kale markaan gudbo waxaan 200 u sameeyay waxay tahay dhiirigelin nin dhalinyaro oo noloshiisa in lagu dheel isku dayay macnaha inuuna isdhiibin oo dhalinyaradana inay isku markin dhalinyarada shantan farood ilaahay ma simin waa la kala wanaagsan yahay waa la kala fiican yahay aniga 200 waxaan u sameeyay inaan ku dhiirigeliyo oon shalana ku dhiirigelin jiray maantana ku dhiirigeliyo birina ku dhiirigelin doono insha Allah marka Faisal abaha ayaa 300 oo doolar gaar ahaan Manson team ayaa inoogu deeqeen dadka qaarana soo waxay leeyihiin maxay tahay bahdilkan maxaa lacagtan u qaadanaysiin aniga waxaan ugu jawaabay waxaan dhahay dhiirigelinta maanta ninkan uu sameynayo haddaan maanta aniga aan dhoomo qaadanayay beri dad aniga iga daran oo xitaa koob shaaxa gurigooda laga kari karin ayaa jiri karo ama jiri doono marka si dadkaas aysan dulmanayaal u noqon in cid walba qadarta qabsato in loo gurma karo in meesha aan ka muujiyo bal arrintaas soo sidaa sax samaa aad aan kugu raacsanahay arrinkaas waa sax musiibadan keliyana maahane ilaa labadaada ani ahaanteyda Faisal ahaanteyda waxaa ii qorshe ilaa labadaada lug aa ku istaagayso hadday noqoto udub dhaxaad ama hadday noqoto aasaaskii noloshaadii kale in aan khaasatan aan Faisal ahaan aan ku garab taaganahay waay muhiimadda meesha iigu weyn aniga okay aye maxaa idin kaga baxay hadalka Faisal walaalkeena Faisal Norway samafal Faisal Norway oo ku sugan dalka dibadiisa Faisal Norway hadalkiisa waxaa kaga baxay qof wanaagsan ayaa bulshada mar walba wanaag u horseedi kara qofna caawin kara qofka markuu dhib ku dhacno waa la caawiyaa musiibo markay dhacdana waxa waaye waa la is caawiyaa marka marabna musiibada cid geysatay iyo sida loo geystay marabno waxaa rabnaa bas annaga waxaan way dhaceen qadar alle ku dhaceen sidee looga soo kabtaa marka dadka qaar hadalkan aad ugu farxaayo isleeyahay sababtoo ah durdur lacag ay aruursanaysaa mashruuc ay ku raadsanaysaa wax mashruuca ma aha walaalkii abaha ay imaaday
lacagu wuxuu dhahay idinku deeqaya oo ah garasho waaye aniga isiima dhihin faysal norway samafala faysal norway oo hadda dalka dibadiisa ku sugan walaalkeena intaasna anaa caddaynaya adiga ima soo wacnin anaa ku soo wacday haddana anaa weli taagan maanta maahan beri keliya maahan beri damba maahan shalay ma aheen ilaa iyo noloshaada intii macnaha iska kaabayso lugahaada ku istaagaysa anaa kula dul taagan shalayna waxaa ahayd nin shaqaysanaya waxna weydiisanaynin maantana insha allah waa bilashida soomaalida waxay dhahaan waa in yaroo gaaban anaana ku soo wacdo kula soo raadsadoon taladan iyo fikradan keenay cidna iguma qasbin cidna ul ima wadanin dad kale ay yirin waxba loo jooji maayo horaa u soconaysaa inaan ku gubaabiyo oon ku garab istaagana mar walbo waxaa waaye wax nolosha aas-aasiga ku dhisan ma fahan maasha allah waad mahadsan tahay faysal norway oo nagu soo deeqay lacag $200 waxaan ku leenahay aad u mahadsan tahay faysal u mahadsan tahay allah ka mahad celinaa faysal guuleyso masuul aad u mahadsan tahay guuleysaan leenahay dhammaantiin waan salaamahay liibaanshoor loo maqlaa ninka la dhahayo baana balbalaarka miya oo hadlaayo baana balbalaar waaye aad iyo aad aadan ku salaamayaa sidoo lugeel waan salaamayaa inta kaloo iga qarsoon waan salaamayaa aad u mahadsan yahay tani kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo